xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Mareykanka ayaa sheegay in ay dacwado ku soo oogeen dad gaadhaya 47 qof oo Soomaali u badan kuwaasi oo lagu soo eedeeyay in ay lunsadeen lacago badan oo loogu talagalay in loo qaybiyo caruurta danyarta iyo ciyaal iskuulka. xeer ilaaliyaha guud ee federaalka u qaabilsan gobolkani Minnesota Andre Lugar oo isagu shirjirayd ku qabtay magaalada Minneapolis ayaa faahfaahin ka bixiyay kiiskaasi waxaana inii soo gudbinaynaa nuxurka hadalkiisii. bishii March ee sanadkii 2020 bilowgii cudurka COVID-19 ayaa koox yar oo reer Minnesota ay qorshaysteen in ay dhacaan malaayiin dollar iyagoo fursad ka dhex arkay barnaamij dawladda federaalku ay ugu tala gashay in ay ku quudiso caruurta danyarta ah ee gobolka Minnesota. waxay iska dhigayeen ama ay sheegteen in ay caruur badan oo danyara ay quudiyeen taasoo aan waxba ka jirin, kaliya ujeedadoodu waxay ahayd in ay qaataan lacagtaasi ka imanaysay dawladda federaalka. kooxdani yar markii ay qorshahoogii dhagarta ahaa uu suurtagalay ayaa waxaa ku soo biiray shakhsiyaad iyo kooxo kale oo wada socda oo iyaguna ujeedadaasi oo kale lahaa oo ah inay dhacaan lacagahaasi loogu talagalay caruurta danyarta ah. waxayna noqotay musuqmaasuqii iyo xatooyadii ugu weyneed ee ka dhacda guud ahaan waddanka Mareykanka tan iyo markii uu bilaabmay cudurka COVID-19. waxaan rabaa in aan halkan idinku soo bandhigo baaritaankii aanu samaynay iyo dacwadihii aanu ku soo oognay shakhsiyaadkaasi iyo kooxahaasiba. magacaygu waa Andy Lugar, waxaan ahay xeer ilaaliyaha dawladda federaalka u qaabilsan gobolkani Minnesota. shirkani jiraydna waxaa igu weheliyaa Mr. Michael Paul oo ah dambibaare sare oo ka tirsan hay'adda FBI-da, Justin Campbell oo ka socda hay'adda IRS-ta ee cashuuraha federaalka iyo madax kale oo fara badan. maanta waxaan rabaa in aan faahfaahin ka bixiyo dacwad aanu ku soo oognay 47 eedaysane kuwaasi oo aanu ku soo eedaynay wax isdabamarin, lacago si sharci darra loo leexsaday iyo laaluush. 47kan eedaysane waxay muddo yar gudaheed ku kaceen khiyaamo weyn iyo xatooyo xoolo dadweyne, waxaana xudun u ahayd hay'ad la yidhaahdo Feeding Our Future oo ay madax ka ahayd gabar la yidhaahdo Amy Back. iyada ayaana ahayd maskaxda ka dambaysay khiyaamadaasi weyn. waxa kale oo hoos imanayay kooxo kale oo iyaguna ku bahoobay makhaayadaha la yidhaahdo Safari, Haji Kitchen, Brava, Empire, Jigjiga iyo S&S Catering. kooxahani waxaa kaloo ay samaysteen ururo aan kuwa faa'iido doonka ahayn. waxa kale oo ay furteen xarumo ay sheegeen in ay cuntada ku qaybin doonaan iyagoo dhammaantood qandaraas ka qaatay hay'addaasi Feeding Our Future ee ay madaxda ka tahay gabadhaasi la yidhaahdo Amy Back. kooxahani qaybo ka mid ah sida Safari iyo Empire waxa ay sheegteen in ay furteen xarumo badan oo cuntada lagu qaybiyo, halka Brava oo ku taalay magaalada Rochester ay diiwaan gashadeen xarun kaliya oo cuntada lagu qaybiyo. 47kan qof ama eedaysane 6 ka mid ah dambiyadii waaba lagu helay. waxaa jira 3 kale oo iyagana loo ballamiyay guddi xeer beegti ah oo go'aan ka gaadha. waxaanan filayaa in iyagana dambiyada lagu soo eedeeyay lagu heli doono maadaama caddaymaha aanu hayna ay xooggan yihiin. eedaysanayaashani waxa ay lunsadeen oo ay dhaceen lacag dhan $250 milyan oo loogu talagalay in cunto loogu qaybiyo caruurta danyarta ah waqtigii uu socday cudurkii COVID-19. hase yeeshee waxay lacagtaas u isticmaaleen danahooga gaarka ah. waxaan aaminsanahay in lacag intaa ka badan ay soo bixi doonto maadaama uu baaritaanku socdo. lacagtaasi waxay u isticmaaleen inay guryo kaga gataan Minnesota, Turkey, Kenya. waxaa kaloo ay iibsadeen baabuura kuwa raaxada ah oo qaaliya, dahab iyo waxyaabaha kale ee juuliriga ah ee qaaliga ah. waxa aanu qabanay oo aanu la wareegnay hantidii lagu gatay
lacagahaasi la lunsaday qaybo badan oo ka midana waannu ku daba jirnaa. qaabka loogu talagalay barnaamijkan cunno qaybinta ayaa ah in qofka ama hay-adda qandaraaska qaadatay ay iyadu marka hore cunto nafaqo leh ay soo iibiyaan, kadibna ay u qaybiyaan ciyaal iskuulka iyo carruurta kale ee baahan. kadib ay soo qortaan waraaqo qaansheegad ah oo rasiid ah oo muujinaya cuntadii ay iibiyeen iyo kharashaadkii kale si lacagahaasi ay ugu soo celiso wasaaradda waxbarashada oo qaabilsanayd. caqligana ma gasho in qof intuu meel kiraysto, dad shaqaaleeyo, cunto soo iibiyo, carruur u qaybiyo, haddana uu ka macaasho malaayiin doolar. xitaa haddii aad quudiso kumanaan carruura sida ay sheegteen eedaysanayaashani, ma dhacayso inaad lacagta intaa leeg aad ka hesho barnaamijkan cunno qaybinta haddii aad si sharci ah aad ugu shaqayso. waxaana iska cad in eedaysanayaashani ay lacagta badankeeda jeebka iskaga shubteen, halka ay xaddi yar oo aan sidaasi u buurnayn ay ku bixiyeen cuntada iyo shaqaalaha. eedaysanayaashani waxay ka faa'iidaysteen oo ay fursad ka dhex arkeen wakhtigii uu bilaabmay cudurka COVID-19, kaasi oo sababay in iskuullada la xidho, shaqooyinka badankooguna ay istaagaan, taasi oo sababtay in waalidiin badan oo danyar ihi ay waayaan waxay siiyaan carruurtooda, carruurtaasi oo marka horeba qaarkood ku tiirsanayd cuntada iskuullada laga qaybiyo. sidaas darteed ayaa dowladda federaalku ay soo saartay barnaamijkani carruurta loogu quudiyo. eedaysanayaashani waxay u arkeen fursad si degdeg ah loogu taanjiri karo, wayna iska sii wadan lahaayeen haddii ayna dowladdu shakiin islamarkaana ayna bilaabin baadhitaan. lacagihiina waa la joojiyey markii uu baadhitaanku soo shaacbaxay bishii koowaad ee sannadkani 2022. waxa la yaab leh, waxa ay sheegteen in ay bixiyeen in ka badan 125 milyan oo cunto ah. xarumaha qaarkood ayaa sheegtay in ay bixin jireen ku dhowaad 5,000 ilaa 6,000 oo cunto ah maalintii, toddobaad walba, taasi oo aan waxba ka jirin oo ay iska qorqorteen. waxaas oo cunto ah waxa ay sheegeen in ay ku qaybiyeen muddo yar oo 20 bilood ah gudahood. hay-adda Feeding Our Future waxa ay dusha ka maamulaysay xarumo cuntada lagu qaybiyo oo gaaraya ilaa 200 oo xarumood oo ku yaala guud ahaan gobolka Minnesota. xarumahaasi oo ay sheegeen in ay ku quudin jireen kumanaanta carruurta ahi waxay ahaayeen qaarkood qolal yaryar, guryaha guurguura ee mobile houseka loo yaqaano, dukaamada iyo xafiisyada hortooda, iyo meelaha jirdiinooyinka ee ku yaala magaalooyinka. 47 eedaysani oo qaarkood aanu hubno in si degdega dembiyo loogu soo heli doono marka lagu daro gabadha la yidhaahdo Amy Back. waxaa kale oo aanu dembiyo ku soo eedaynay qaar ka mid ah shaqaalaheeda hay-adda Feeding Our Future oo aanu ku soo eedaynay in ay sameeyeen dokumentiyo iyo waraaqo been abuur ah oo lacago badan lagu qaatay. waxaanan hubnaa in aan in ka badan dembiyo lagu soo eedayn doono maadaama uu baaritaanku socdo. 47kanina ay yihiin raacii hore. lacagaha la lunsaday ma ahaynun mid ay qaateen kuwa qandaraasyada qaatay ee xarumaha been abuurka furtay, ee waxaa jiray lacago badan oo ku soo noqon jiray hay-adda Feeding Our Future iyo shaqaalaheeda si laaluush ahaana, iyadoo lagu abaal marinayo khiyaamada ay fududeeyeen. barnaamijkani cunto qaybintu sida loogu talagalay in uu u shaqeeyo waaba sidan. dowladda federaalka ah waxaa u qaabilsanaa wasaaradda beeraha ee federaalka, kadib waxaa qandaraas ku siisay wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Minnesota, iyadoo qandaraas ku siisay hay-adaha aan faa'iidadoonka ahayn oo gaar loo leeyahay. hay-adahaasina waxa ay dusha ka maamulayeen kooxo iyo shakhsiyaad cuntada qaybiya oo iyagu cuntada markaasi soo iibiya, isu habeeya, kadib qaybiya oo furta xarumo lagu qaybiyo. xarumahaasina waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo 7 ilaa 16 carruura xaruntiiba, kadibna ay soo gudbiyaan rasiidadii iyo boonooyinkii ay cuntada ku soo iibiyeen iyo kharashaadkii kale ee kaga baxay cunto qaybinta iyo shaqaalaha.
kadib lacagta sidaas baa loogu soo diraa. waana qaabka ay dawladdu ugu tala gashay inuu barnaamijkani u shaqeeyo. laakiin qolyahani eedaysanayaasha ahi waxay furteen xarumo lacag lagu urursado ee ma ahayn kuwa carruur lagu quudiyo. waxaana shikiga keenay sida degdeg ah ee ay hay-adda Feeding Our Future ay codsiyada u aqbalaysay una ogolaanaysay oo ayna eegayn sida ay suurtagal ku noqonayso in xarun yar oo shalay la furay haddana ay markiiba sheegato in lagu quudiyey in ka badan 2,000 oo carruura. waxa ay soo gudbin jireen rasiido ama qaansheegad been abuur ah oo weliba isku wada mid ah iyo weliba magacyo carruureed oo iyaguna been abuura oo ay sheegeen inay cunto siiyeen. magacyadaasi oo markii aanu baadhnay aan ahayn kuwa jiraba. waxayna si istaba jooga u soo gudbin jireen rasiido ama waraaqo ay ku qoran yihiin carruurtii ay sheegeen in ay quudiyeen oo tiradoodu isku wada mid tahay biladhan. waxa la yaab leh, tirada carruurtu isma beddesho, waxba kuma kordhaan, waxba kama dhimnaan, midi ma bukoodo, midi ma maqnaado, ma guuro. waa carruurtii uun maalin walba, toddobaad walba iyo bil walba. waxa kale oo aan idin tusayaa tusaale yar oo ah waraaqahaasi ay soo gudbin jireen mid ka mid ah eedaysanayaashu. waxaa idiin muuqda oo warqadahaasi ku qoran in 2,500 oo carruura cunto loo qaybiyey muddo 5 cisho ah. waad u jeediin, taasi isma beddesho. warqadan kale oo iyana ay soo gudbiyeen xarun kale waxa ay muujinaysaa in cunto u qaybiyeen carruur gaadhaysa 3,900 maalin walba muddo bil ah. tiradaasi isma beddelin. waxaana saxeexay mid ka mid a eedaysanayaashani kadibna u soo gudbiyey hay-adda Feeding Our Future oo iyaduna markiiba meel marisay oo lacagtiina u soo dirtay. lacagtaasi oo qayb ka mida ay dib ugu soo noqotay madaxda hay-addaasi Feeding Our Future iyo shaqaalaheeda si laaluush ahaana. waxa kale oo aanu ogaanay in eedaysanayaashu ay soo qorteen magacyo carruureed oo aan jirin. magacyadaasi qaarkood iyaga ayaa samaystay oo jeebka kala soo baxay, halka ay qaar kalena ay ka eegteen websaydyada laga eegto magacyada aan jirin. waxa kale oo qaladaad ku jiray carruurta da'dooda. tusaale ahaan, wiil yar oo da'diisa lagu sheegay 8 jir bishii 1 ee sanadka ayaa 6 bilood kadib isagii da'diisa loogu qoray 12 jir. waxa kale oo aanu baadhnay oo aanu isbarbar dhignay iskuullada ay sheegeen in carruurtaasi ay magacyadooda qorteeni ay dhigtaan. waxaan ogaanay baaritaan kadib in 1% ama 2 ay yihiin magacyo saxa oo ay leeyihiin arday dhigata dugsiyadaasi. eedaysanayaashani waxa kale oo ay sameeyeen rasiido been abuur ah oo ay ku sheegeen in ay cunto ku iibiyeen, halka qaar kalena ay dad caadi ah ka iibsadeen rasiidadii ay wax ku soo gateen si ay uga dhigaan in iyagu cuntadaasi soo iibiyeen oo ayna qaybiyeen. eedaysanayaashani waxa kale oo ay isku dayeen in ay qariyaan raadadkooda khiyaamada ah oo ay ka been sheegaan waxqabadkooga. tusaale ahaan, mar aanu wax ka weydiinay gabadh laydhaa ayaan jaamac oo maamulaysay hay-ad layidhaahdo Briva oo xarun cuntada lagu qaybiyo ku lahayd magaalada Rochester, oo aanu weydiinay carruurta ay cuntada u qaybiso waxay yihiin. waxay tidhi waa carruur ciyaal iskuul ah, waxaanan heshiis cunto qaybina la galnay hay-adda maamusha iskuullada magaalada Rochester. taasi oo beenowday markii aanu baaritaan samaynay. markii haddaba ay shikiyeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Minnesota, waxa ay sheegeen in ay u yeedheen madaxda hay-adda Feeding Our Future haweeneyda la yidhaahdo Amy Buck. waxay u sheegeen in sida ay wax u socdaani ayna ahayn si macquula. waxaana ay weydiiyeen bal in ay sax tahay in xarumo yaryar oo degdeg loo abuuray
inay awood u leeyihiin in ay cunto u qaybiyaan kumanaan kun oo carruura. Amy Bark waxa ay u sheegtay in xarumahaasi ay yihiin kuwa sidii loogu talagalay u shaqaynaya oo ay iyadu dusha kala socoto. waxa halkaasi ka cad in Amy Bark ay been ka sheegtay xaaladda dhabta ah ee ka jirtay, waayo iyadaaba faa'iido badan ku qabtay khiyaanada halkaasi ka socotay. laakiin mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu sidaasi kumay joogin ee waxay bilaabeen inay cadaadis saaraan Amy Bark iyo xarumaha cunto qaybinta ee hoos yimaada hay-addeeda Feeding Our Future, iyagoo diiday inay aqbalaan rasiidada ama waraaqaha qaansheegadka ee ka imanayay Feeding Our Future. markii lacagihii la joojiyey ayaa Amy Bark waxay go'aansatay in ay dacweyso mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, iyadoo ku eedaysay in sababta ay lacagta u joojiyeen ay tahay nacayb iyo cunsuriyeyn ay u hayaan dad kale xarumaha cunto qaybinta oo ah Soomaali soo galeyti ah iyo in yaro Oromo ah. nuxurka dacwadda Amy Bark u gudbisay maxkamadda ayaa ahayd sidan: hadda kadib kumanaan carruura oo baahan ayaan wax cunto heli doonin, waayo wasaaradda waxbarashada ayaa joojisay lacagihii cuntada lagu qaybinayay sabab la'aan. Amy Bark marka ay dacwaddaasi maxkamadda u gudbinaysay waxay ogeyd in lacagahaasi badankoodu ayna gaaraynin carruurtii baahnayd ee loogu talagalay, taa beddelkeedana ay lacagahaasi ku dhacayaan jeebabka eedaysanayaasha maamulayay xarumihii lagu sheegay in cuntada lagu qaybinayay. waxaan rabaa in aan tusaale yar idinka siiyo mid ka mid a xarumihii la sheegay in cuntada lagu qaybinayay oo ku taala magaalada Wilmer. waa magaalo yar, dadka magaaladaasi ku noolna waxa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 21,000 oo qof, halka ardayda dugsiyada dhigataana ay tiradoodu gaarayso 4,500 oo arday. sidaas oo ay tahayna haddana eedaysane la yidhaahdo Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan Safari Group ayaa waxa uu sheegtay inuu cunto u qaybin jiray in ka badan 2,000 oo carruura maalin walba. laakiin markaan baaritaan ku samaynay magacyada uu soo gudbiyey waxaanu ogaanay in keliya 33 magac oo keliya ay yihiin magacyo saxa oo jira oo ardayda dugsiyadaasi dhigata amaba magaaladaba degan. dhammaan magacyadii kale ee uu soo gudbiyey ay ahaayeen magacyo been abuura. eedaysane Cabdulqaadir Maxamed xaruntaasi si degdega ayuu u sameeyey, waxaana uu kiraystay makhaayad yar oo ku taala dhismahani sawirkiisu idiin muuqdo, isagoo ku kiraystay lacag dhan $45,000 oo dollar. makhaayaddan yar ee uu kiraystay kirada caadiga ah ee markii hore ay mulkiilayaasheedu ay bixin jireen waxay ahayd $1,600 oo dollar, laakiin isagu waxa uu ku kiraystay lacagtaasi gaaraysa $45,000, waayo waxa uu ogaa in ay malaayiin dollar u soo socoto. falkani xatooyada ah iyo khiyaamada ahi waxa uu ka dhacay guud ahaan gobolka Minnesota, laakiin waxa ugu badan magaalooyinkani ay ka mid yihiin Wilmer, Pelican Rapids, White Park, St. Cloud, Burnsville, Faribault, Mankato, Rochester, Osceola, Minneapolis iyo caasimadda St. Paul. hawlgalladii aanu samaynay waxaanu ku soo qabqabanay oo aanu dib u soo celinay hanti gaaraysa $50 milyan oo ka mid ahayd hantidii la dhacay. hantidaasi 24 milyan oo ka midii waxay ku jireen akoonyo bangi oo gaaraya ilaa 60. waxa kale oo aanu qabanay oo aanu la wareegnay hanti maguurta ah oo tiradoodu dhan tahay 45 guri oo qiimahoodu gaarayo 24 milyan oo dollar. waxa kale oo eedaysanayaasha aanu kala wareegnay 14 gaari oo qiimahoodu gaarayo 820,000 oo dollar iyo alaabo kale oo qiimahooda aanu ku qiyaasnay inay yihiin 250,000 oo dollar. welina way socotaa baadigoobka hantidii la dhacay soo celinteedu, waananu ku rajo weynahay, waananu soo qaban doonaa meel kastoo ay caalamka ka taalo. mudanayaal iyo marwooyin, kiiska noocan oo kale ah oo sidan u baaxad weyn ka howlgelidiisa iyo guulka gaadhidiisuba ma aha mid maalmo yar ku suurtagali karta, ee waxaa suurtageliyey dadaal dheeraad ah oo aan kala joogsi lahayn
oo ay sameeyeen rag iyo dumar firfircoon oo ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka. dadaalkaasi oo qaatay bilooyin dhan. ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dadkii kiiskan igala shaqeeyey oo ay ka mid yihiin dembibaarayaasha sarsare ee ka tirsan hay-adda FBI-da iyo hay-adda cashuuraha federaalka ee IRS. waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqayaa kooxdii sharciyaqaanada ahayd ee uu hogaaminayay Joe Thompson. shaqo wacan ayaad qabateen. baaritaankanina waa sii soconayaa. sidaan horeyba u sheegay, eedaysanayaashani waa raaci koowaad. kuwa badan ayaa dhiman. dhammaantiinna waad mahadsantihiin.